fasalada u dhigo waa dugsi dhexe xataa way ku jiraan ilaa 8 ilaa 4 oo kale xushmada iyo qadarinta iyo muujiyaan qof walba waa qaabka ardaydiisa ula macaamil waayo laakiin sir oo la dhaha badana waa arday waaweyn xoogaa maxay la dhahay maxay macallimiinta arqaladayaan sida haweenka kale wax arqalada kale ma kulmo dabcan waxa kamid tahay macallimiinta ku sugan magaalada Beledweyne si gaar ah iskuulka hoose dhexe ee sare Beledweyne waa iskuul weyn bal ka waran waxaad nagu warantaa maadooyinka aad halkan ka bixiso maadaama maxay tahay haween oo dabcan ay ku yihiin haweenka in macnaha ay wax baraan ama goobaha waxbarashada ay ku yihiin aad iyo aad u maadsan tahay waa ku dhawaay warbaahintan iskuul Beledweyne ee macallinka ahay maadooyinka aan dhigano waa maadooyinka dugsi sare ku baxo qaasatan maadada Soomaaliga dhiga oo fasalada dugsi sare ee koowaad ilaa form 4 waya bal ka waran maadooyinka aad dhigto bal ardayda aad barto maadaama macallin haween aad tahay bal ficil maxay ka soo baxaan ardayda maadaama aan ognahay inta badan haweenka ka darinba والله horta wixii la sheegay waa dambi laakiin aan shakhsi ana iska hadlaayo fasalada u dhigo waa dugsi dhexe xataa way ku jiraan ilaa 8 ilaa 4 u dhiga waxa aad iyo aad ugu maxay ku maasan ardayda u dhigo kale xushmada iyo qadarinta iyo muujiyaan qof walba waa qaabka ardaydiisa ula macaamil waayo laakiin ani shakhsi ahaan ardayda dhigato iskuul Beledweyne siiba waa arday dugsi oo la dhaha badana waa arday waaweyn xoogaa maxay la dhahay maxay macallimiinta arqaladayaan sida haweenka kale wax arqalada kale ma kulmo waxa laga yaabaa marba ilaa hal cunug kale isku dhacdaan laakiin waxa ka badan ardayda kale maxay wanaagi iyo qadarinta noo muujinaysa ka badan laakiin wax arqalad iyo wax isku dhacay oo kala kulmo ma jirto waya bal halkan waxa ku sugan ardayda badan oo gaaray suumiyaha waxaan ognahay in marka halkan ku sugan tahay aad kala celinayso ardayda macallin meeqa macallin haween halkan ku dhigtaan dugsiga oo saddex ee sare ee Beledweyne والله أرض معلمين تدكتو سكول بندون هوينك والله إلا وحي جاريان سجال معلم جاريان سجال كودن إلا هذا محيط وح أرضي عقبتكو ما أركن لكن أنا هالشخص أنا أسكت الله لكن معلمين كله محيط أرضي كنت أجيه إنه عرق لدينا يوم معلمك والسور عديدا ولي ما أركن وأرضي ما شاء الله حشمة السيد واجي ورا أرضي معلمين تقبلها ومحيط يقدرين مولها ومحيط حشمة الرجال ده لما جو حوار حملة أرضي سيهور إن معلمينتي macallimiinta rag iyo macallimiinta haweenka isku mid ay yihiin oo dhankaas qadarin fiican ay ka haystaan way dad badan oo ku daawana oo kugu jira haween rag xabkida cadan way ka baxeen hadalkaas bal fariinta kala u diraysa macallimiinta haweenka maxay tahay maadaama haween badan oo wax bartay jiraan dabcan ay jiraan guryaha bal fariintaada ugu dambayso diraysa wallahi fariimaha haweenka oo wax bartay guryaha jooga loo daray fara badan yihiin laakiin qof walba waxa way caqabad guri ah in haysta laga yaabaa laakiin qof walba soo maareyn lahay asaa yaqaano laakiin hadii aad isdhahdid haweena ahay hooya ahay guriga jooga ciyaal igu xariiro bulshada dhaxgali karo macallin noqon karo maxaa la bulshadaasi waxyaabaha ka jira kama qayb qaadada tareed ada sukeenid qof niyada wax meeshii ay rabto ada gaarsiin kartid qofkana go'aan inuu yeesho way fiican tahay laakiin maxay hadii aad isdhahdid maxay haweena tahay dhalinyaro wax ma bari kartid way ku arqaladeynayaan xoogay fooda ka imaanada tareed waa mid aad niyada iska dhaadhacsid laakiin ana waxa aaminsanahay hadii aad u soo jeesatid bulshada ka mid noqotid macallimiinta haweenka qaranka Soomaaliyeed ka mid noqotid macallimiinta qaranka Soomaaliyeed ka mid noqotid waxaan jeclahay waxaan aaminsanahay inay maxay meeshii horumar ugu wanaagsan ay way aragnu soo kordhayso hadana waxa Soomaalidu waxay dhahdaa haween wax bartay waa qaran wax bartay mise bulsho wax baratay waa dhahdaa sababta hooyada hadii wax fahansan tahay ay wax taqaano oo bulshada ku dhaxdo waxa laga yaabaa caruurteeda inay ku soo abaabiso qaabka maxay bulshada loo dhaqmaayo qaabka macallimiinta loo dhaqmaayo inay iikana maxay qaabka macallimiintu qadarin lahaayeen qaabka bulshadu qadarin lahaayeen in meesha ka soo barto abaabinta meesha ka soo bilowdo marka macallinka maxay macallimada macallinta ardayda wax barayso way ka wanaagsan tahay wayna ka khibrad badan tahay macallinka ragga ah sida aan aaminsanahay wayahay gabadhada marka halkan aad ka dhigaysaa sida aad sheegtay maadada Soomaaliga dugsiyo badan inaad dhigtan waa rajayna oo ku yaala gobolada dalka dowlad goboleedka Shabeelle bal ma jira waxyaabo dhibaato ah kala duwan sida laga dugsiga kala dhigo wallahi horta aan macallimada waxa soo bilaabay ana arday form 2 ah waa 2006 ka soo bilaabay ana arday ah ina macallin noqdo ilaa al'aan ana macallin ahay waa muddo 18 sano ku dhawaada macallin iskuul ahay wallahi wax caqabado way jiraan laakiin waa caqabado yar yar oo markaas la xalin kara laakiin caqabado waaweyn oo ani hortaagi wali ma ana la kulmin ilaahay ma